xarunta aqalka baarlamaanka Somaliland waxaa maanta kulan ku yeeshay saddexda xisbi qaran iyo sidoo kale gudida loo saaray muddo kordhinta golaha wakiilada. Haddaba kulankan oo ah mid ay albaabadu u xidhnaayeen oo warbaahintu ay dibadjoog ka ahayd ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay siyaasi Cabdicasiis Maxamed Samaale oo kamid ah saraakiisha xisbiga Kulmiye isagoo faahfaahin ka bixiyay kulankan. Sidoo kalena waxa uu sheegay in xisbiga Kulmiye uu ka tirsan yahay ay ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada Somaliland ee loo asteeyay inay dhacaan dabayaaqada sanadka 2019. annagu aan xisbi ahaan qabno muddo badan aad miidiyaha ka maqlayseen ee ah doorashada golaha wakiiladu aad bay inoogu muddo dhaaftay waana jiitay in badan dib baa loo dhigay sababa ay yeelatayba ama sababayba inaanay 2019 imika aan ku jiro aanay dhaafin xilliga lagu qabto ayaa xisbiga go'aankiisu runtii yahay xisbiga Kulmiye go'aankaygu yahay taladaas ayaan u sheegnay golaha guurtida aanu nidi xisbi ahaan go'aankayagu waxa weeye in doorashada golaha wakiilada 2019 hadda aan ku jirto dabayaaqadiisa aanay nala dhaafin taasi oo dalkeena u dana taa oo adduunyada indhaha inagu haysaa ee arkaysa inay doorashooyinkoona muddo badan dib u dhaceen ay aad iyo aad inoogu waaninayaan tala inagu siinayaan doorashadaas inaanay sanadka inala dhaafin marka runtii go'aankaas oo anagu xisbi ahaan kaanu qabnay ah saddexda xisbi qaran go'aan aanu isla qaadanayna ahaa markii aanu aragnay inaan March 2019ka doorashadu xilligii loogu talagalay ay dhaafayso oo dib uga dhacayso inaanaan dhaafin 19ka ee aynu ku hayno 2019ka 2019ka aynaan dhaafin akhirkeeda marka golaha guurtida oo runtii golaha leh marka ay doorashadu waqtigeeda dhici weydo cidda taladeeda leh ee go'aanka dambe loo geeyo iyagu markaa muddada ay doorashadu ku la qabanayo go'aamiya iyagoo eegaya duruufaha dalku ku jiro iyo komishanku sidoo wax u qaban kariya xisbiyada taladoodaba eegaya ay go'aan qaataan waxaanu runtii u keenay taladii iyo go'aankii xisbi ahaan anagu aanu arkaynay in dalka dantiisa ay ku jirto wanaagiisu oo ah in doorashada muddadeeda aanay 19 dhaafin golaha guurtidu haddii warqadii madaxweynuhu soo qoray oo ka go'aan qaata wixii aad xaqidin ku leedihiin go'aanka xisbigayagu inuu yahay inaan doorashadaas 2019 aanay dhaafin. Cumar Cabdi Cumar warbaahinta badda Cas 24 TV magaalada Hargeysa.